halkani waa madxafka guud ee dalka Sacuudi Arabia waxaana uu ku yaalaa magaalada Riyadh ee caasimadda dalkaasi iyadoo lagu magac daray boqorkii hore ee dalkaasi boqor Cabdulaziz. gudaha madxafkani ayaa gabi ahaanba mid ka duwan dhammaanba kuwii aan soo arkay waxaana lagu keydiyay halkan taariikhda islaamka ka hor iyo sidoo kale taariikhda dalka Sacuudi Arabia. qaybta hore ee madxafkan ayaa waxaad ku arkaysaa sawirrada xayawaano dunida ku noolaa kumanaan sano ka hor oo qaarkood haatan dunida ka dabargo'een. sidoo kale waxaa isla gudaha yaala qalabkii loo adeegsan jiray dagaalada boqolaal sano ka hor sida seefaha iyo warannada. dhanka kale qalabkii iyo weelkii cuntada ee dunida laga isticmaali jiray boqolaal sano ka hor ayaa iyaguna ah mid halkan yaala adigoo si weyn ula yaabaya qaabka farshaxanimada leh ee loo sameeyay alaabadaasi. asxaabta saad wada arkaysaan halkanna waxaa yaala kitaabka qur-aanka ee kariimka oo ah mid uu gacantiisa ku qoray khaliifkii saddexaad ee muslimiinta Usmaan bin Affan. runtii kitaabkan waxaa la qoray sanadkii 30aad ee taariikhda hijriyada. waa mid aad u cajiib ah runtii. halkanna waxaa ku taala waad ka akhrisan kartaa markaad madxafka gudihiisa joogto dowladda Sacuudigu intii aanay abuurmin sidan ayaa ahayd. halkanna waa maabkii Sacuudiga ee dowladnimada Sacuudiga ka hor iyo sidii gobolladu ay kala ahaayeen. halkan magaalada Madiina ku taala sad wada arkaysaa, halkana magaalada Makka Mukarrama, halka Daa'if baa iyaduna ku taala sad wada arkaysaa, iyo magaalooyin kale oo runtii aad iyaguna cajiib u ah. asxaab sad wada arkaysaana waxaa iga dambeeya iyaguna noocyo ka mid ah saliidda qayrin oo aan la filtar garaynin oo halkan la keenay. waa madxafka guud ee qaranka ee Sacuudi Arabia oo ku yaala magaalada Riyadh. waxaa halkan loo keenay madxafkana loo keenay si dadku u arkaan maadaama dalka Sacuudigu yahay dal caan ku ah soo saaridda shidaalka. waxa kale oo aad ka helaysaa gudaha madxafkani qolo loo diyaariyey dadweynaha soo booqanaya madxafkani kuwaas oo lagu sharaxayo qaybaha iyo taariikhda kala duwan ee madxafkani yaala. madxafkani waxa uu sidoo kale kaga duwan yahay dhammaanba madxafyadii hore ee dunida ku soo arkay intii aan marayay. markasta oo aad qayb cusub gasho waxaa tegaysa iyaduna qayb aad ku nasanayso oo loogu talagalay madadaalo isla markaasina lagu soo bandhigayo waxyaabo furfuraya maskaxdaada sida ciyaaraha kala duwan. madxafkani boqor Cabdulaziz oo ku yaala magaalada Riyadh ayaa gabi ahaanba mid ka duwan dhammaanba madxafyo kala duwan oo dunida ku yaala maadaama gudaha madxafkani ay yaalaan dheeman iyo dahab fara badan oo loogu talagalay in la daawado kuwaas oo ay qaarkood isticmaali jireen boqorro dunida soo xukumi jiray boqolaal sano ka hor. gabayo iyo hadallo lagu xardhay qoryo si weyn loo nashqadeeyey boqolaal sano ka hor ayaa iyaguna ka mid ah waxyaabaha aad ku arkaysid madxafkani. asxaabta halkana waxaa yaala sad wada arkaysaan desaynka labada masjid ee barakaysan ee masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ku yaala magaalada Madiina iyo masjidka xaramka ee ku yaala magaalada Makka. desaynskooda sida ay u dhisan yihiin sida loo qurxiyey ayaa halkan iyagana aad ku arki kartaa adigoo muraayada dusha ka daawanaya. waxaana ay ku dhex yaalaan madxafka qaranka ee dalka Sacuudi Arabia. asxaabta muuqaalkii maanta intaas ayaa uu inoogu egyahay. haddaba ha ka mid noqdo haddii aad dalxiis u timaado dalka Sacuudi Arabia goobaha aad soo booqan doonto madxafka guud ee qaranka ee dalka Sacuudi Arabia oo ku yaala magaalada Riyadh. ku xunoo iibsho ana socod muuqaalaas.